وهاجك صاحبيال soo dhawaad mar kale waan ku faraxsanahay inaan halkaan soo gaartay waan cashirkeeni sideedaad adkeysi muuji mar dhow waa dhameynaysaa insha Allah waxaan rajeynayaa inaad awood badan yeelan doonto wax badanna way ku ifbixin fadlan inta daawanayso koorsadaani waxaan ku leeyahay iska fogeey waxyaabaha ku mashquulin kara si koorsada ama cashirka aad wax badan uga fahanto intaas kadib waxaan rabaa markaan inaan ku xijiyo sidee shay loo tirtiraa marka la isticmaalayo softwarekan waxaa la isticmaali doonaa tool yiraahdo lasso toolkan magaciisa waxaa loo yaqaanaa lasso toolkan marka wuxuu kuu suurtagelinayaa in sawirka aad samaysay ama sawirka aad soo dhistay ama aad qurxisa nooc ha ahaadee in aad tirtir ku samayn karto aad qayb kamid iska tiri karto qayb kamidna aad dhaafi karto marka qaybta aad tirayso adaa calaamaysanaya kadibna waad tiraysaa marka toolka qaabilsan in shay la tirtiro la calaameeyo waxaa loo yaqaanaa lasso toolka aan gudaha u galo marka waxaan rabaa marka inaan soo qaato sawir aan ku baraatikeeyo waxaan soo qaadanayaa oo kale isla maxaa yidhahdaaye sawirkan oo kale soo qaadanaya halkaan la imaanaya photoshopka la imaada halkaan kusii diiraya waa drag and drop isticmaalay marka sawirkan aad jeedin waa Facebook live hore u diyaariyay qaabka nooca loogu diyaariyo waan gaari doonaa oo baran doonaa hadda waxaan baranaynaa agabkan waxa loo isticmaalo agabkan marka isticmaalkiisa barano waxaan sameeyntooda aad ugu fududaanaya hadda Facebook waa taqaanaa sida loo qoro waa soo baranay koorsada soo qaadan qaab qoraal loogu qoro waxaan soo qaadan qaab kalarka looga dhigo backgroundka iyo waxaan waa baranaynaa insha Allah waxaan rabaa marka inaan isbedel ku sameeyo toolka qaabilsan in wax la jaro oo la tirtiro waxaa loo yaqaanaa toolkan ayaa la yiraahdaa waxaa loo yaqaanaa lasso tool hore waxaan soo qaadanaa selection tool ama rectangular toolkan wuxuu ahay selection gareyn ama in meel la doorto kan laakiin wuu ka duwan yahay waa midka ku xiga waxaa loo yaqaanaa lasso tool L ayaa loo soo gaabiyaa ama shortcutkiisu yahay lasso tool marka aan cabaar hayo aan furo waa wuu kala duwan yahay lasso tool Blenoga lasso tool magnetic lasso tool dhammaantood isku shaqawaay lasso tool ka bilaabaya lasso tool shaqadiisu waxay tahay marka koowaad in aad ku jari karto kaliya ayaa siiyay Facebook ayaan ku wareejinayaa magacaan oo ku wareejinayaa ilaa halkaan ay keenayaan hagaag intaas awjeedin waxaan ku sameyn karaa isbedel tusaale right kala hadda waxaa ujeedaa waxyaabo fara badan aad u badan waanan maro waxaan sameynayaa daleeda taabanaya kadib waxaan leeyahay okay maxaa dhacayo isfiiriya isbedelaa ku dhacayo waxyaala sugiina culays yar ayaa jiro isbedel ku dhacay marka waxaa waaye laba mid noqonaysa qoraalka dhan inuu tiro inuu qayb kamid tiro waxay ku xiranta marka qoraalkaas ama sawirkaas siduu yahay hadduu sawirkaas uu yahay sawiro badan oo isdul saaran sawirada isdul saarnaya ayuu gadaal ku dhacaya markasta lasso tool ku fiican background isku mid ah in loo jaro background isku mid ah sida backgroundkan oo kale hada backgroundkan oo kale waa background isku mid ah wuxuu suurtagelinayaa in shayga la jarayo kale si fudud aad u fudud loo jaro hada maxaa jiraa way go'day qaybtan yarta ayaa noo dhiman control D maxaa waa selection inta noo dhiman calaameeya marka intaan iyadana select saar usoo wareeji marka usoo wareejiso delete out okay inta meeshan saaran ku go'ay waxay ku xiranta computerka oo soo isticmaalayso noocu yahay culays badan ma lahan aniga sababtoo toolkan isticmaalay toolka baa isticmaalay oo kale wax kale ayuu noqonayaa qaybtan aydan select aji maanta waxaan ku baranaysaa oo aad Photoshop ka baranaysaa bal qaabka sawirka qayb kamid loo tiri karo bal fiiri hadda maxaa sameeyay control D maxaa sameeyay Facebook live waa tiri magacaarta qoran kartaa soo ma jeed magacaarta qoran kartaa sala sawirkan quruxda badan aragtay intaan aragtayna sawirka gashato calaamee ku soo wareeji mujida ku soo wareeji ilaa kaskee kadibna delete out okay maxaa dhacayo meeshaas qoraalka uu ku fadhiyo dhan wixii saarnay way yani tirtirmayaan haddii aad rabto tusaale kale adoo sawir qof kula jiro kale na qayb kamid ah qofkaas aad jirto waa tiri kartaa hada soo midid sawirka wixii ka dambeeyay uu gudbay had meesha wax harta soo saari kartaa haddii aad tusaale kale sawir ula galay oo kale saaxiibka ama saaxiibada ay kula gashay inaad iska tirto kale waa tiri kartaa
sawirkaan soo qaadanaya aan hore u diyaariyay ayaantan casharada ku soo baraatikeen halkaan soo dhigo sawirkaan markaan rabo inaan ka tiro kale waxaan sameynayaa intaan rabo inaan tiraan calaamadeena tusaale intaan rabo inaan tiro intaan maadaama aan rabo inaan tiro macallaa WhatsApp intaan rabo inaan tiro way fududahay sumgid meesha aan ka bilowdo keenay marka meesha ka bilowdo marka kiliga sameynaysa waa ku jiiday hadda calaamada waxaan ku sameynayaa kiliga ayaa qabanaysa kadib waa jiiday wala wareeganaysa adoo kilig tahay marka dhameeyso oo meesha aragta la imaato kiligta sida kadibna delete taawo okay taawo hadda waxaan marka filanayna sawirkeeni qaybtaas oo inay baxal wadato waa diidan sama marka lasso tool faa'iido badan ayuu leeyahay faa'iidada uu leeyahay marka asiga qaybtan waa qaybta jarjarista waa in wax jarto waa qaybta wax jaris aw isticmaasho waxa marka hada lasso tool halkaas oo gudbina lasso tool marka tool kale ayaa jiro oo asal ka sii farcamaan marka toolish qaar way kala farcamaan kuwa qaarna ma farcamaan lasso tool hadda waa soo aragnay polygonal lasso tool ayaa jiro asna polygonal lasso tool asna waa isla asiga oo kale laakiin shaqooyin kala duwan polygonal lasso tool marka isticmaalayso waxa laga baahan yahay inaad taabato alt tusaale kale hadda halkaan taabto kale sumjid marka kuwaad cusub tahay alt waa inaad taabataa أنا هامر تعبتي مركز سمجد كان مركب حواي ماشي عرفت صلت ساري سمجد وكل الحسنة سمجد وات سودت وات صوت إلا أن تفتر وات هذا تبيه بالبيت سكر سمجد هذا أنت صار بنا دليل تاونا أوكي لا مركب هذا لازم تلسنا وكبدنا سمعين بس كل سنة مكبرنا كان لكن أديك ودي سايس كارت أو سمينة نظام كارت أو جرجريسة قاب كارت أو سمينة ساعات واحد صوبح كنترول دي بما كنترول دي والسلاشة حدارة الفرع إنك تكتب كله صوت فرت الله صوصه هكذا مكان ما يجسي هكذا كليك مكان حاول هكذا يستوى كليكسي هكذا جيس كليكسي وصوصه كليكسي سمجد صوصة أكان كلسي سمجد كلسي أكان كلسي هاي جدا كل كسي ما كان لما يسوق حسمين يسا كل أسيني لو مر كل أهور كسيني دليل تقرأ فيه حاسويسا يا حاسويا مسك حالك شخصي حاسويسا waxay tahay inuu tirti ku sameeyo Soomaa waa kaasa oo tirti meel yar oo soo reey meelaas ma meel yar oo u baahan in mar la celiyo hatta kale suureeti hal mar la celiyo sumdi hal mar la celiyo la kaskay halkaas marka كل marka caawinay يعني شيء جيسك أنت جيسك سكلنا على مش كذا كله بحث حلوة يتانا مغنيت لاسو تول كحوا أساس معمولاي بصراحة كانت صوب لاي أساسية يدا هاوس لودي أساس معمولاي قلت واحد على أساس وتجرا سمجد أساس معمولاي ترتيب ولي بس سمجد أساس معمولاي هاوس ودي أساس معمولاي كمان مغنيت لاسو تول هذا كعيال بانينا معوش magnetic lasso tool maxaan dhahay markaaga baahno inaan kaliya siinaysi markaan meesha laba mar kaliya siinay oo ku soo celina asaas maamula sumjidi fiiriya asaas maamula fiiri ama meel saaro imay ani waa iska wada bis hal mar la kaliya siina waa iska wada bis sudi hal mar kaliya siina meesha ka tagto marka ku imaad kaliya si kadibna delete taabo okay marka kan wuxuu ku fiican yahay tahay asaas wadaayo kii hore ada ilaaliyay Soomaa magnetic laakiin asaas wadaayo waxa uu arko in gudarayo wuxuu u arkay in laga jaraayana wuu ka jaraa marka magnetic lasso tool qaybtaas ayaa u baxaya asii marka gobiyahantiis waa in wax la jaro oo wixii la select garayo oo la jaro fadlan si aad u fahanto si fiican u wada